munaasabada ay si wada jira u soo qaban qaabiyeen hay'adda socdaalka dunida ee IOM iyo xarunta wacyigelinta muhaajiriinta ee MRC ayaa maanta laga xusay maalinta muhaajiriinta caalamiga ah. munaasabada xuskan waxaa hadal kooban ka jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Asmaan Garaadsofe oo ka warbixiyay doorka ay ku leeyihiin hawlaha ee dhinaca amniga iyo xaq qofka muhaajirka ah. marwasiirka arrimahaasi ka hadlayay waxaa hadaladiisa ka mid ahaa ما هي إنه كل عدة دبالدقة سايمان تحوس الساعة إسبرار وشنيسا وعالم كنت ولادي هاي وإنه قلنا إنه كم من هذين دول السوماليلاند كوا مالين قرن مركا ما أنت قرن دمان بطل كن كسر طيب قلي كسر هو شاضي بدي هاي تهاي فيس كان MRC وسوى هاي هولهاس وعيقلنتا أيضا كلا عالم جاي تاكلية سيدا عيون تاكله sidoo kale waxaasna halkaasi ka hadlay agaasimaha xarunta wacyigelinta muhaajiriinta Maxamed Yuusuf Cusmaan oo ka warbixiyay ujeedada xuskan waxaanu sheegay inuu aqoonsaday maalinta muhaajiriinta caalamiga ah. waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay Dayib Cabdiraxmaan Askar oo ku hadlayay afka hay'adda IOM isla markaana ka warbixiyay waxqabadkooda iyo wada shaqaynta ay leeyihiin xarunta MRC 18 bisha tamaad ayaa loo aqoonsaday xuska maalinta muhaajiriinta caalamiga ee dunida taasoo laga xusay meelo badan oo dunida kamid ah.